السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قالك كسودو هذا لك حنا مادة أكولار ديسيس إن هروح عن أقصى هذا اللي لك جرت حنا هاي مادة إن جودهان وحن كسو هذا إن النكسيال ستراكشرز كان كسو هذا أيليد كان كسو هذا إن سوكل وحن كسو أوربيتال كان كسو هذا إن وحكلو كسو هذا أنتيريو قيبت هراء إيشان كسو هذا anterior waxaa kasoo hadalnay saddex layeran kaga soo hadalnay scleran kasoo hadalnay cornean kasoo hadalnay waxaa kaloo kasoo hadalnay xuubka saarnaa scleraha ee conjunctiva ayaan kasoo hadalnay maanta haduu ilaa yiraahdo waxaan dhameynay qaybta hore ee anterior segmentiga isha ayaan dhameynay ama anterior layerska ayaan dhameynay maanta haduu ilaa yiraahdo waxaan bilaabeynaa middle layer ayaan bilaabeynaa middle layer magaca labaad waxaa loo yaqaanaa uveal tract layer loo yaqaanaa uveal tract ayaa loo yaqaanaa saddex layer iskugu imaado waay layerka kood waxaa loo yaqaanaa iris oo midkaan cagaarka noo marsan waay waxaa kaloo ku xigo ciliary body oo qaybtan guduudka ujeedaan ay iriska ugu dambeyntii waxaa kaloo ku xiga choroid midka koowaad waa kana labaad waa kan saddexaadna waa ka marka saddexdaas layer ayaan ka hadli doonaa waxaa noo harsanaan doona haduu ilaa yiraahdo retina iyo optic nerve ayaa noo harsanaan doona haduu ilaa yiraahdo markii laga hadlaayo middle layerka waa layerka ugu weyn mataqaana markii buugta laga hadlaayo ee ugu cudurada badan ku dhaco markii laga soo tago corneada anterior layerka anterior segment layerskeeda waxa ugu badan cornea waxaa ku soo xigo conjunctiva scleraha aad ay u yareen laakiin markii la joogo in maxallaha uveal tract waxaa ku badan cuduro aad u tiro badan oo waxaa ku badan cudurka ugu weyn ee indhaha mataqaana ku dhaco loo yaqaan glaucoma cataract cuduro badan ka hadli doona duilaara sawirkaani waxaan u soo khulaaseynay si anatomical qofka ugu fahmo maadaama aan ka soo hadalnay layerskan maadaama ocular disease-ka waxaan kaga soo hadalnay maadooyin kale tusaale ahaan waxaan kasoo hadalnay anatomy and physiology-ga ishaan kasoo hadalnay markaan kasoo hadlaynay midmida ugu soo hadalnay marka layerskan shaqaday noo qabtaan iris waxa ay tahay ciliary body waxa uu yahay waxa uu noo qabto choroidka waxa uu yahay soo marka maanta markii laga hadlayo cudurka ku dhaco wuxuu ka caawinayaa hadda qofka anatomicalka uu fahansan yahay inuu inta wax badan ka fahmo hadduu ilaah yiraahdo waxaan bilaabi doonaa layerka cudurka ugu horeeya ee ku dhaco anterior middle layerska waxaa loo yaqaanaa uveitis loo yaqaanaa uveitis-ka waa uvea means waxaa waaye saddex layer oo uvea tract itis waa inflammation saddexdaas layer inay noqdaan inflammation waa erey terminology oo mataqaanaa isdur saaran waa fasiraadiisa sidaas noqonaya soo marka waa inflammation inuu ku noqdo uveal tract inuu noqdo ama inflammation of three middle layers saddexda layer ee isha inay inflammation noqdo maxaa sababa saddexda layer ee middle layerka inay inflammation noqdaan waxyaabo aad iyo aad u tiro badan oo sababa uveitis-ka kaliya ee wax laga hadlaa 130 page ee book ayaa lagu hadlaa macnaha waa cudurka ugu badan middle layerka ku dhacdana waxaa waaye causeskiisa buugaag pages intaas tiro badan laga qoraa marka waa soo khulaaseyn waxaa sababa leeyahay kuwa qaar waxaa leeyahay infection cause ayaa sababa infection cause waxaa ka mid ah syphiliska oo ugu horeeya tuberculosiska labo iyo brucellosis-ka syphiliska syphilitada caadiga syphilitida soo marka type of infectious bacteria sababo tuberculosis TB bacteria sababto oo mostly TB dadka qabo lagu arko iyo brucellosis-ka dadka oo mataqaana bronchitis inflammation leh inta badan lagu arko non infective disease-ka dadka inta badan lagu arko waxaa kaloo kamid ah causes-ka oo inta badan non infective-ka waxaa ugu horeeya Barker disease-ka Crohn disease-ka iyo sarcoidosis-ka waxaa sababa sidoo kale mataqaana cause of uveitis-ka maxaa la systemic disease-ka waxaa ku jira inflammation of bowel disease sidoo kale multiple sclerosis-ka waa one of types of inflammation sidoo kale Kawasaki disease waa mostly cause cudurada ku dhaco normalka ee affect gareeya uveitis-ka sidoo kale waxaa kaloo jira side effect of drugs-ka sometimes cause waxaa cause gareeya uveitis-ka daawooyin qaar uu qofka isticmaalo waxaa ugu horeeya quinine oo type of antibiotics-ka
waa mostly common waa especially waxaa sababa moxifloxacin. moxifloxacin wax ugu badan waxaa leeyahay some causes mataqaana dad qaar side effect ahaan ugu noqdaan drugskaas iyo rifampicin. sidoo kale waxaa kaloo sababa causeskiisa aad iyo aad ay u badan yahay oo dadka qaar waxaa lagu arkaa dadka genetical factor ahaan lagu arkaa oo unknown cause ah. dadka qaar genetical ahaan ugu maadan haddana unknown cause uu yahay. sidoo kale infection factorieska tusaale ahaan some type of viruska hadduu qabo herpes zoster ophthalmic herpes simplex keratitis. sidoo kale waxaa kaloo lagu arkaa dadka bacteriyada oo any type of bacteriyada oo mataqaanaa hadduu qofka leeyahay bacteria conjunctivitis hadduu lahaan lahaa bacteria coli ulcer hadduu lahaan lahaa xaaladahaas noocaas camal waxay effect gareynayaan sidoo kale inuu mataqaanaa develop gareeyo uveitis. waxaa kaloo jira symptomska maxaa calaamad oo uveitis aan ka arkayna qof hadduu uveitis qabo sidee dhihi karnaa qofkaan calaamad nooceen ugu imaan karaa. calaamadaha waxaa ugu horeeya burning sensation qofka inuu dareemo gubasho indhaha inuu ka dareemo. labo redness indhaha inay gaduutaan gaduud tiro badan inuu ka dareemo. blurry vision caaf inuu indhaha ka dareemo. headache and eye pain inuu indhaha ka dareemo xanuun indhaha inuu ka dareemo madax xanuun uu dareemo. irregular pupil almost calaamadahan hore waxaa waa qofku wuxuu ka caawinaya waa calaamadahan dambena waa wax dhakhtarka uu arkaayo waa almost waxaa la arkaa irregular pupilka inuu oval shape inuusan ahayn irregular uu yahay. photophobia iftiinka qofka inuu ka cawdo iyo bloatriska waxaa lagu arkaa in anterior segment anterior jumper anterior segment ama anterior jumper isha lagu arkaa. anterior jumperka normalka waxaa loo kala qaadaa cornea to iris waxaa loo yaqaanaa AC. iris to lensiskana waxaa loo yaqaanaa BC oo ah posterior jumper. soo marka anterior jumper waxaa loo arkaa bloatriskaas lagu arkaa. ugu dambeyntii maadaama waxa cause garay aan sheegnay sidoo kale symptomskana aan sheegnay maxaa leenahay maxaa lagu treatment gareynaya almost lagu treatment gareynaya treatmentkiisa waa some type of drugska special drugs oo corticosteroidka steroid drugska lagu sameeyaa immunosuppressive lagu sameeyaa sidoo kale mydris lagu sameeyaa. mydris waa loo sameeyaa almost wuxuu effect gareeyay middle segmentiga haddii oo small segment oo sameeyo waxaa dhacay ciliary congestion badan dhacay almost pain tiro badan qofka dareema calaamadahaas wuxuu cause gareynaa IUP inuu kaco. soo marka that's why mydris kana muhiim u tahay. waxaa kaloo ka hadlaynaa hadduu ilaahay raado congenital abnormalities ku dhaco middle segmentiga layer uveal drugs. waxaa ugu horeeya iris coloboma. iris coloboma waa congenital eye condition waxaa leeyahay waa congenital eye condition that occur wuxuu ku dhacaa one part of the iris is missing. waxaa leeyahay part of iris qayb ka mid ah iriska in la waayo. tusaale ahaan iriska sidaan ayuu oo mataqaana u wareegsan yahay tusaalehaan sidaan ayuu u wareegsan yahay almost qaybtan camal ka mid ah in la misgareeyo in la waayo. colobomada iris coloboma oo waxyaabo ugu badan. soo marka waxaa leeyahay black knot of the edge of the pupilka hareerihiisa ayaa black knot kala soo muuqanaya given irregular shape. soo marka haddii oo qayb ka mid la waayana maxaa dhaca irregular shape ayaa dhaca. marka regularka shapeka saxda ah oo toosnaa wareega ah ay wuxuu noqonaa irregular pupil. sidoo kale secondary pupil ayaa la arkayaa secondary of pupil ayaa la arkayaa. the people with iris coloboma waxaa leeyahay the people with iris coloboma dadka qabo iris coloboma can have waxay lahaan karaan very good vision xumo ayay dareemi karaan but laakiin waxaa leeyahay small coloboma can cause waxay sababi kartaa blur vision. waxaa leeyahay colobomada haddii aad u yartahay xataa small haddii missing iriska qaybtiisa haddii aad u yartahay xataa blur vision ayuu qofka dareemaa. sidoo kale degrees vision ayuu dareemaa degrees visual acute ayuu dareemaa oo visionkiisa qofka inuu wax ka qaldamo ayuu dareemaa. sidoo kale double vision ayuu dareemaa waxa inay laba la noqdaan. ugu dambeyntii wuxuu kaloo dareemaa ghost image why intaan calaamad ee aragtida qofka inuu wax ka noqdo cawaaf tiro badan inuu dareemo contrastive calaamadaha kale inuu sabab waxyaabahaas dhan why iftiinka loogu soo celinaa because normalka iriska waxaa dul saaran oo ku dahaaran pupil structure ku dahaaran. soo marka pupilka wuxuu noo sameeyaa shaqada ugu weyn ee sameeyo waxaa waaye pupil contraction iska sameeya. iriska hadduu irregularnimadiisa wareegiisa hadduu wax yar ka qaldamo almost wuxuu develop gareynayaa
oo problem ka noqonaya qofka in uusan aragtida iftiinka isha galaya inuu qofka si fiican wax ugu arkay soo marka waa waxyaabaha ugu badan ee soo laabanaya images inuu wax ka qaldamo waxaa kaloo jira glaucoma waxaa leeyahay kan association guud ahaan glaucoma hadda waxaan ka hadlaynaa iris glaucoma ka hadlaynaa waxaa kaloo jiro iris glaucoma jirto choroid glaucoma jirto waxaa kaloo jiro optic nerve glaucoma ayaa jirto intaas nooc glaucoma jirto guud ahaan waxaa la leeyahay glaucomada kan association waxay noqon kartaa waxay la xiriiri kartaa with heredity dhaxal ahaan ay noqon kartaa oo condition ah tusaale intaan wax ayaa glaucomada sababta ay leeyahay heredity condition ay noqon kartaa trauma with eye ish inay jug inay ish ku dhacday noqon kartaa eye surgery noqon kartaa ish qalin in lagu sameeyo the people with glaucoma waxa leeyahay dadka glaucomada leh ma also waxay leeyihiin great risk inay ku sameeyaan of glaucoma pressure-ka isha inuu kaca ay oo ma taqaan qofka inuu glaucoma yeesho ay risk ugu jiraan waxa leeyahay eye condition can damage waxay damage garan karaan optic nerve ay damage karaan treatment-kiisa wuxuu noqon karaa available inuu qofka waayo to help preference of light muhiimadda waxa leeyahay hadii qofka laga daaweynayo light protective in qofkaasi ayaa very important waxaan ka hadlaynaa hadduu ilaaraa waxaan kasoo hadalnay uvatiski oo manual segment ugu weynaa middle layerska ugu weynaa waxaan kaloo kasoo hadalnay iris special iris aan kasoo hadalnay oo iriskan wuxuu qaabilsan yahay iriska one of the abnormalities ku dhaco hadda waxaan ka hadlaynaa mataqaana waxaan ka hadlaynaa cataract aan ka hadlaynaa cataract waa one of anterior segmentiga problemyada ku dhaco middle segmentiga ayuu soo hoosgalayaa waxaa leeyahay cataractiga waa excluding no clude ku sameysmo lens of the eye inuu xirmo lensiga isha inuu xirmo which kaasoo typically clear inuu noqdo for who have cataract so marka waxaa leeyahay sin clude lensiga it look waxaa loo fiirinayaa frost or walk up windows tusaalahaan lensiga wuxuu noqonayaa waxaa leeyahay frog or walk windows ahaan qofka oo noqonaa cold vision wuxuu noqon karaa by cataract can make waxay noqon kartaa more difficult to read sidoo kale waxaa kaloo leeyahay can cause include vision kaasi caused waxay sabaysaa more difficult to read qofka inuu wax aqriyo ayaa ku dhibnaanaysa sidoo kale waxaa leeyahay car driving habeenka markuu wax wado inay dhibto siin wuxuu kaloo dareemayaa leeyahay expression of friend's face ayaa la dareemayaa maxaa cause gareeya lensiga inuu clude uu noqdo waxaa cause gareeya leeyahay mostly cataractiga waxaa develop gareeya age da ay cause gareyso qof da markuu noqdo waxaa lagu arkaa age-ka sidoo kale injury-ga dhaawacyo ish soo gaarto tusaale trauma ish soo gaarto meeg waxay sameynaysaa lensiga jug ish soo gaarto in lensiga oo moving gareeya meeg lensiga sidoo kale protein and fibreska of lensiga begin break down ayay noqonayaan lensiska waxaa ka kooban yahay proteins ayuu ka kooban yahay water content ayuu leeyahay some type of materials ayuu ka kooban yahay so marka waxyaabahaas dhan waxay sababayaan inay break down this cause waxay sababaysaa la leeyahay become hazy and clude inuu sababo visionkiisa inuu noqdo visionka inuu noqdo cawaaf inuu noqdo clude inuu noqdo cawaar tiro badan inuu qof ka dareemo ama haziness inuu qof ka dareemo sidoo kale waxaa leeyahay some disorders passage down from parents that can cause healthy eye problem to increase risk of cataract dadku waxaa leeyahay health problemska guud ahaan qofka qabo waxay kaloo cause gareyn karaan in cataract oo develop gareyn tusaale ahaan dadka qaba diabetic dadka qaba hypertension waxay develop gareyn karaan cataract increase inuu ku ziyaado cataract also waxaa leeyahay waxaa leeyahay cause waxaa sababa other eye conditions sida surgicalka bas surgery inuu qofka qaliin hore u soo maro medication conditions dadka daawooyinka isticmaala as diabetic long terms inuu isticmaalo using drugs steroid inuu isticmaalo medicine ka sort also waxaa leeyahay cataract of development maxaa calaamado qofka caadka markuu leeyahay lagu dareemaya calaamadihiisa waxaa ugu horeeya waxaa leeyahay clude vision caaf tiro badan oo qofka dareemo oo cawaar tiro badan oo dareemo ama blurred inuu noqdo ama dim vision noqono aragtiisa inay dim ay noqoto ama blurred inuu noqdo ama clude inuu dareemo waxaa leeyahay trouble seeing inuu qofka saddex inuu arko at night sense at night markii habeenkii ay tahay double ama triple vision inuu qofka wax u arko
sensitive to the light and glare inuu qofka dareemo iftiinkan inuu dhibo awaayf tiro badan inuu dareemo sidoo kale need wuxuu u baahanaya leeyahay for bright light for reading markuu wax aqrinayo inuu iftiin daarto ayuu u baahnaanaya and other activities ka tusaale markuu wax qoraayo markuu wax aqrisanayo markuu wax daawanayo inuu iftiin aad tiro badan inuu si waxa la leeyahay halos waxyaabo wuxuu dareemaa wax saan camal u soo socda cadaan tiro badan inuu dareemo around light iftiinka reeriisa ku dareemay frequency change waxaa lagu sameynaa eyeglasses waxa isbedelaya leeyahay hadduu ookiyaalo wato inuu isbedelo and contact lens inuu isbedelo sidoo kale waxaa kaloo leeyahay calaamad oo lagu dareemaya violet ama yellow coloriska inuu qofka vein inuu sameeyo double vision ayuu qofka dareemaya one eye hal il oo ishaas caadka ku badan tahay laba in wax uu arkayo dareemaya yaa khatar ugu jiro in ishiisa cadaan yeelato ama caadka uu yeesho lensigiisa inuu isbedelo waxaa khatar ugu jiro increase age da qof walba uu ku siyaado oo 40 kor u dhaafo 50 kor u dhaafo ama 60 kor u dhaafo ama 70 kor ka gaaro waxa lagu arkaa almost waxa leeyahay over age 70 years age ka 60 70 ku ka koreeya almost cataract to develop garanaya diabetes dadka qaba sokorta dadka qaba waxay sameynayaan iyagoo da'doodu yar tahay inay qasgareen getting too much in sunlight iftiinka inuu qofka dhibo sidoo kale smoking and obesity inuu sameeyo qofka dadka oo caylan dadka oo sigaarka caba inta badan waxay risk ugu jiraan inay caadkaas develop gareen family history inuu qofka dareemo of cataract sidoo kale waxaa kaloo leeyahay previous eye injury or inflammation noqdo previous eye surgery qofkaas inuu sameeyo sidoo kale waxaa leeyahay prolonged use corticosteroidska dadka si joogtada u isticmaala oo daawooyinkan oo steroidska oo medicationska halis ay ugu jiraan drinking excessive of amount of alcohol salay qofka inuu isticmaalo daawooyin aad u tiro badan oo chemicals oo alcohol ah ama khamri inuu zaad u isticmaalo waxay sabaysaa in mataqaana qofka soo develop garay waxa soo gaarnay sidee prevention loo sameeyaa sidee looga hortagaa waxa leeyahay non study have provide two prevention of too slowly of cataract waxa leeyahay si looga hortago ama slowly growth in loogu sameeyo inuu caadka qofka aad ugu bato as healthy profession qofka waxa leeyahay help waxa ka caawinaysa regular eye examination oo sameeyo qofka baaritaan indha oo si joogto ah inuu sameeyo dhakhtarna oo taga caadkiisa la ogaado aad iyo aad ay muhiim in early stage xaaladda markay cusub tahay ask inuu sameeyo health care termska you shall have eye examinationska do not smoke qofka inuusan cabin waxyaabaha mataqaana muqaadaraadka oo sigaarka waxaas inuusan isticmaalin sidoo kale management inuu ku sameeyo other health problemska tusaale ahaan hadduu qofkaan uu qabo if have hadduu qabo waxaa leeyahay diabetic hadduu qabo ama other eye conditions sida hypertensionska waxyaabahaas aad ay waxay u develop garaynayaan inuu yeesho sidoo kale juice inuu sameeyo healthy diet inuu sameeyo that include sidoo kale plant of fruitska iyo vegetableskaas inuu isticmaalo cuntoyin qudaar leh waxyaabahaasna way ka caawinaysaa adding fruitska and vegetables you diet ensure the getting many vitamins and nutrient fruits ayuu qofka dareemaya waxaa leeyahay wearing glass ookiyaalo qofka inuu xirto into the UV light protection oo qofkaas uu noqdo kan koos waxay sabaysaa cataract inuu growth uu sameeyo inuu yaraado inuusan growth ku sameynin wearing glasses waxaa leeyahay block waxay ku sameynaysaa UV into the outdoor markuu banaanka qofka u baxaayo reduce alcoholiska qofka inuusan yareeyo waxyaabaha muqaadaraadka ah treatmentiga laba nooc loo sameeyaa imaajoor markuu yahay qofkaani ookiyaalo aragtiis usoo ziyaadina loo sameeyaa hadduu imaajoor oosan ahayn oo maajoor uu yahay almost surgery ayaa treatmentigiisa waxaa ka hadli doonaa hadduu ilaaraado lectureskan ugu dambeeyo waxaa ka hadlaynaa glaucoma ayaan ka hadlaynaa glaucoma waxaa leeyahay eye condition waay that can damage waxay damage garaysaa optic nerve ayay damage garaysaa optic nerve ayay damage garaysaa this damage waxaa leeyahay can lead wuxuu sababa visual loss aragtida dhan qofka inuu eber noqoto ama blindness ayuu sababa aragtida cudurkaani waxaa waaye wuxuu dhibaato gaarsiiyo never treatment looma samayn karo waxaa waaye haddii aragtida maanta oo cudurkaani boqolkiiba halkaa kaa iyadoo aragtidaada boqolkiiba boqolkii ahayd hadduu hal mid ka mid a aragtidaada oo damage gareeyo almost never ever ma soo laabanaysa in oo mataqaanaa gadaal uu kasoo laabto hashaasi waxaa leeyahay optic nerve cell wuxuu sameeyaa information from your brain optic nervaha oo image gareynaya optic nerve ka hadlayna optic nerve waxaa leeyahay send wuxuu diraa visual information wuxuuna u dirayaa
from your brain ka udira into the visual good vision aragtida day fiican tahay the good vision. Damage of optic nerve waxaa leeyahay haddii damage gareysmo optic nervaha waxaa leeyahay is often waxay samaysaa high pressure relate waxay la xiriirtaa high pressure-ka oo pressure qofka uu kacsiiya. But like waxaa leeyahay glaucoma can help waxay ka caawinaysaa even typical eye pressure-iska way ka caawinaysaa qofka daawooyinka typical pressure-iska oo daawooyinka loo isticmaalo way ka caawinaysaa. Glaucoma waxaa leeyahay can help waxay caawinaysaa any age. But like waxaa leeyahay is more common waxay ku badan tahay macnaha glaucoma waxay inta badan ugu badan tahay for adult patient ay ku badan tahay. One of the leading cause waxay sabaysaa blindness of age 60 years ay dadka oo 60 sano ka weyn almost waxay develop garanayaan blindness ay develop garanayaan. Many forms waxaa leeyahay glaucoma have no wearing sin wax calaamad ah ma lahan le effect is gradually wuxuu noqonayaa effectiga oo aragtida uu gaarsiinayo is gradually tartiib inuu noqdo oo chronic uu noqdo that can not have change until the condition is later stage. waxaa leeyahay ilaa xaaladda ay noqoto late stage waxaa leeyahay tartiib oo sameeyo. It's important waxaa muhiim ah have regular eye examination inuu sameeyo qofka eye regular examination asoo measurement lagu sameynayo eye pressure isha in laga cabiro qofka. If glaucoma waxaa leeyahay found hadii laga in early hadii laga visual loss can be waxay noqon kartaa slowly progressive. If waxaa leeyahay have glaucoma qofka hadduu qabo glaucoma you will need waxaa u baahan tahay treatment ama monitoring in loo sameeyo for rest of your life noloshaada inta ka dhiman in monitoring of eye care loo sameeyo baahnanaysa. maxaa cause gareeya qofka inuu glaucoma oo noqdo glaucoma waxyaabo aad u tir badan asaba waxaa leeyahay glaucoma is development wuxuu develop gareeya optic nerve damage inuu noqdo optic nerve inuu become uu noqdo damage alle. waxaa kaloo leeyahay gradually inuu noqdo get worse blind spot inuu developmental in your vision dhibic madow ah qofka inuu waxaa leeyahay in your vision inuu noqdo for waxaa leeyahay for reason that the doctor the full understand wuxuu fahmay the optic nerve damage into the ocular pressure oo qofka pressure garanay. Raised waxaa leeyahay kicitaanka uu ka caay pressure-ka eye pressure-ka happiness waxay sameynaysaa result inuu ka dhasho oo body ama fluid flow inuu dareemo the inside of the eyes qofka in isha gudaha isha laga jiidayo inuu dareemo body ama fluid inuu dareemo into the eyes. waxaa leedahay fluid college waxaa loo yaqaanaa fluidkaasi oo ka caay waxaa loo yaqaanaa aqueous humor ayaa loo yaqaanaa aqueous humor ayaa loo yaqaanaa. waayo usually waxaa leeyahay joints waxay ku sameysaa tissue the angles iris waxaa leeyahay and cornea meat waxay sameynayaan the tissue college waxaa loo yaqaanaa trabecular muscle oo meesha oo biyaha oo pressure-kaas aqueous humor-ka marayaan ayaa loo yaqaanaa trabecular muscle. waxaa leedahay the cornea important waxay u tahay into vision become inay noqoto lead of light into the eye iftiinka oo soo gala iftiinka jibisa cornea very important ay u tahay aragtida. waxaa leeyahay one the eye make too much fluid and drainage system does not work probably eye pressure might be increased. waxaa leeyahay haddii spacekaas oo pressure-ka meesha ka baxaya uu yaraado almost wuxuu riski khatar ugu jiraa in uu increasekiisa uu sameeyo. Open angle glaucoma waxaa leeyahay most common waxay dhacdaa open angle glaucoma drainage forms waxaa dhacaya into the iris and cornea remain open inta kala soo harto way furmaysaa. but laakiin other part of drainage-ka system-ka qaybihii kale ee drainage system-ka oo aqueous humor-ka dhacaya may lead slowly aad ay u yaryahay as increase pressure-ka inuu aad u kaco. waxaa kaloo jira leeyahay acute angle close glaucoma midaad waxay ahayd open angle ayuu ahaa midaad waxaa jiro open acute angle close glaucoma biyihii meeshay marmayeen inay xirmaan close angle glaucoma waa formed waxaa leeyahay glaucoma happen is iris bargaze so marka waxaa leeyahay bargaze-kaas waa partially ama completely block of drainage angleska. iriska waxaa leeyahay mataqaana meeshii trabecular muscles oo maray anterior jambarka soo mataqaana oo maray in uu blockade ku sameeyo ama partial blockade inuu sameeyo ama completely inuu noqdo qayb kamid ah inuu arko qayb kamid inay xiranta ama partial blockade inay sameeyso. so marka resultiga waxaa la leeyahay fluid can't circulate the eye increase pressure. so marka angle-ka close waxay sameynaysaa glaucoma suddenly ama gradually. glaucoma acute-ka waxay noqon kartaa may be happen waxay dhici kartaa suddenly inuu blockage-ku uu xirmo oo pressure-ka meeshii ka baxay inuu xirmo ama si gradually inuu xirmo.
waxaa leeyahay normal tension glaucoma waxaa no one exists the reason waxa sababa no one qof og ma laha la reasonka why the optic nerve become damaged oo noqona when the eye pressure is healthy eye pressure kiisa qofka normal waay qofkaani optic nerve is oo damage gareyna normal qof lama waxaa leeyahay the optic nerve may be sensitive or experience less blood flow ayaa sameeyay the limit of blood flow may cause waxay sababi kartaa building or fail deposit arterieska and other or conditions ka damage waxay sameeyaan circulation ay sameeyaan the body and factories ka arteries also waxaa loo yaqaanaa arteriosclerosis ay loo yaqaanaa waxaa leeyahay ilmaha ku dhasho childrenska waxaa ku sababa waxaa leeyahay children's inbound of glaucoma and developmental waxay sameeyaan into the fast view life of in your life ilmaha waqtiga aad ku yar yihiin ayaa waxaa lagu arkayaa inuu develop garay glaucoma blocking drainage ama injury inuu qofka dhaco underlying medical conditions oo qofka inuu isticmaalayo optic nerve damage xaaladaas dhan waxay cause gareynaya inay optic nerve damage gareysmo waxaa kaloo jiro waxaa leeyahay glaucoma tendiska waxaa leeyahay waxay kaloo noqon kartaa familiary ay noqon kartaa oo waxaa sababi karo familiary ahaan qofka dadka glaucoma familkooda qaba iyagana way sababi karaan maxaa calaamado qofka glaucoma ku soo muuqanay glaucoma calaamadaheeda iyo causeskeeda aad iyo aad ay u tar badan tahay haddaan ku bilaawno non open angle-ka haddaan ka bilaawno midka open angle-ka uu furan yahay oo blockade uusan jirin waxaa leeyahay no symptoms of early stage in early stage markuu yahay bilaaw markuu stage uu yahay ma jirto wax calaamad ah soo muuqanayso soo kale waxaa la gradually ama blind spot in your sight vision in hareeraha isha ilo qofka inuu blind spot oo ka dareemo madmadow oo ka dareemo side of vision kiis kale waxaa loo yaqaanaa peripheral visual loss ama visual field loss ay loo yaqaanaa in later stage ay loo yaqaanaa difficult scene waxaa lagu arkaa in the central of the vision in your central difficult scene in lagu arko way aad ay u badan tahay leeyahay in central vision ka lagu arko waxaa leeyahay acute angle close glaucoma bandy head edge ayuu leeyahay markuu close angle markuu yahay close markuu xiran yahay bandy head edge qofka dareema zafir eye pain xanuun aad u tiro badan qofka dareema nose and vomiting laba iyo mataqaana inuu dareemo matag sidoo kale blurry vision qofka dareema caaf inuu indhaha ka dareemo sidoo kale halos and colors ring around the light inuu dareemo eye tiredness eye redness ishan inay gaduudato blurry vision waxaas dhan wuxuu dareemaa normal tension glaucoma waxaa leeyahay no symptoms in early stage ma jirto wax calaamad oo soo muuqanayso optic nerve damage inuu jiro visual field defect inuu jiro waxyaas dhan soo muuqanay gradually and blurred vision oo qofka dareema in later stage loss of sight vision dareema waxaa leeyahay glaucoma in children in adult and cold infant lagu arkaa increase blinking no qofka waxaa leeyahay glued eye inuu yeesho wareeg aad u tiro badan inuu yeesho sidoo kale waxaa kaloo leeyahay increase blinking inuu sameeyo oo mataqaanaa in isku qabashadiis aad inuu u badiyo tear without crying waxaa leeyahay ilin oo iska socoto asoo qofka aanan oonin sidoo kale blurred vision oo ilmaha risk lagu arko caaf tiro badan indhaha lagu arko near sightedness-ka that get worse aragtidooda dhow ilmaha inay eber noqoto tusaale markuu cunug wax iisoo qabo aadhahdi aragtidooda inay noqoto ilinta indhaha inay iska socoto asigoon qofka oonin ilmaha iyaga oonin waxaa leeyahay indha isku qabashada iyo aad u bad calaamadaas dhan waxay koos gareynayaan inuu qofkan glaucoma jiro ugu dambeyntii head edge hadduu jiro madax xanuun tiro badan uu jiro way kasmaa pigmented glaucoma waxaa leeyahay halos around the light inuu dareemo blurry vision and excessive inuu dareemo gradual loss of sight of vision inuu dareemo ugu dambeyntii waxaa soo gaarnay sidee loo treatment gareeya glaucoma glaucoma waxaa leeyahay group of eye disease waaye saan hore usoo sheegnay waa calaamado aad u tiro badan iskugu imaada cudur badan iskugu badan xaaladaas badan iskugu optic nerve damage inuu jiro visual field defect inuu waxyaalahaas dhan iskugu imaaday waxaa leeyahay can cause waxay sababaan visual loss of blindness and damage of optic nerve inuu damage garaa treatment optionskiisa waa prescription eye drops qofka in daawo loo qoro daawooyinkani waxaa leeyahay mostly waxay sameynayaan lower pressure-ka ay dejinayaan and prevent optic nerve damage haddii pressure la dejiyo waxaa laga hortagayaa inuu damage gareysmo optic nerve waxaa leeyahay they can't cure glaucoma or reverse visual loss waxaa leeyahay saan hore usoo sheegnay bilowga
pressurekaasi never ma soo laabanayo oo xumaaday. So marka waxaa leeyahay but laakiin dee stop waxay joojinayaan getting worse inuu sii xumaado ayay joojinayaan daawooyinkan. sidoo kale laser treatment yaa la sameeyaa. medical treatment markii laga soo tago laser treatment found waxaa loo sameeyaa the open block drainage markii la sameynaa. tusaalaan dadka angle close glaucomada qaba ayaa drainageka loo furaa. reduce waxaa loo sameeyaa fluid proteins of the eye. laser treatment yaa loo sameeyaa usually association with less pain and swelling. xanuun la-aan oo qofka dareema, swelling barar ma jiro, scarring and then traditional surgery ayaa la sameynaa. ugu dambeyntii xaaladaas markii laga soo tago laserka iyo medical treatment, ugu dambeyntii waxaa loo treatment gareeyaa surgical treatment ayaa loo sameeyaa. if waxaa leeyahay medicine and laser treatment do not work, the surgery waxay ka caawinaysaa can help. haddii labadan treatmentiga medicalka iyo laserka marka wax qof ka caawin waayo, surgeryga can help waxay ka caawinaysaa fluid drainageka. waxaa leeyahay the severe different type of the waxaa jiro waxaa jiro several different types of surgery. in si noocaad u tiro badan jiro surgery type loo sameeyo. the treatment coordinated wuxuu la xiran yahay depend on type of glaucoma and other factors. the primary open angle glaucoma usually treatment waxaa lagu daaweeyaa with iodine drops ayaa lagu daaweeyaa. waxaa leeyahay primary angle glaucoma treatment waxaa loo sameeyaa immediately hospital with medicine ayaa loo sameeyaa. with laser treatment waa loo sameeyaa flow up waa loogu sii daraa. secondary glaucoma waxaa leeyahay with eye drops ayaa loo sameeyaa. laser treatment ayaa loo sameynaa ama eye surgeries ayaa loo sameeyaa. depend on waxay ku xiran tahay causeska oo cause gareeya ayay ku xiran tahay. childhood in glaucoma waxaa leeyahay for surgery ayaa loo sameynaa. ilmaha markayba ku dhashaan glaucomada laazim surgery in loo sameeyo, lead loo sameeyo, fluid ama pressure fall build up in loo sameeyo. regular check ayaa loo sameynaa are important ayaa leeyahay. treatment waxaa ugu muhiimsan regular check up in loo sameeyo, si joogto ah check up in loo sameeyo. some need u baahan to keep taking of glaucoma medicine after laser treatment. dadka daawooyinka isticmaalaya in regular treatment loo sameeyo ayaa muhiim ah. waa idin kaga mahad celinayaa. layeriskani waxaa ku jiro cudurro aad u tiro badan ku jirta, abnormalities aad u tiro badan ku jiro, laakiin waxaan ka hadalnay kuwa ugu badan ee soo laalaabta oo inta badan la arko. waxaa ugu horeeya aan kasoo hadalnay uveitis aan kasoo hadalnay. uveitis anaa u kala qaadan waxyaaba cause gareey. sidoo kale symptomska calaamadaha noo soo muuqan kara anaga arki karno, calaamadaha uu qofka dhakhtarka uu arki karo iyo sida loo treatment gareyn kara. sidoo kale iriska waxaan kaloo kasoo hadalnay iriska. waxaan kaloo kasoo hadalnay abnormalitiska ku dhaco iriska ayaan kasoo hadalnay. ugu soo hadalnay iriska loboma ayaan kasoo hadalnay. sidoo kale waxaa kaloo kasoo hadalnay cataract aan kasoo hadalnay, caadka oo lensiga oo effect gareynaya. ugu dambeyntii waxaa kasoo hadalnay glaucoma aan kasoo hadalnay. glaucomada cashiro gooniya ugu hadli doonaa hadduu ilaa raado oo iyadii cataractiga aad iyo aad ay u weyn yihiin, laakiin inta ugu macquulsaneed maadaama layeriska dhexe aan ka hadli doono, inta ugu macquulsaneed oo lagu soo khulaaseyn karaa kusoo khulaaseyn. waa idinkaga mahad celinaa dhegeysigiin daawashadiin videogan. wixii comment dhanka comment inoo reeb. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.